subscribe for more videos. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa halka inaan uga hadlo arrimaha dhaqaalaha ee dalka iyo qorshooyinka aan ka damacsanahay haddii Ilaahay nagu guuleeyo subxaanahu wa ta'aala talada dalka. Dadka Soomaaliyeed muddadii la soo dhaafay ma helin dawlad iyo ganacsato isku xiran ka wada shaqeeya dhaqaalaha. Ganacsataduna iskeeda u madax banaaneed, dawladuna faragelintooda waa ku yareed waxaan ahayn inay canshuur ka qaado. marka laga reebo xilliga nidaamka anti wadaaga oo isku dayay in uu farageliyo taasna waxay keentay inuu dhaqaalaha laftigiisu hoos u dhaco maxaa yeelay waxay ahaaday nidaam aan dhiiri gelinaynin wax soo saarka. muddooyinka la soo dhaafay dalka waxa aafeeyay abaaro iyo dagaalo, dhaqaalihii wuxuu hoos ugu dhacay si aan la qiyaasi karin. haddii aan soo qaadano maxay ahaato amni darrada sida ay dhibaato ugu hayso dalka in uusan ganacsiga isgaari karin ama uu mataqaana wax soo saarka uusan noqonaynin sidii la rabay. marka waxaan rabnaa insha Allah xilliga soo socda dawlad si positive uga qayb qaadanaysa kobaca dhaqaalaha inaan keeno, aqoonna u leh arrimaha dhaqaale gaar ahaan wax soo saarka iyo ganacsiga labadaba. waxaan la soconaa 2012 markaan ka tagay aniga maxay ahaato xafiiska kobaca dhaqaalaha waxa uu ahay 2.9. 10 sano kadib kobaca dhaqaalaha dalka waxa uu ahay 2021ka 2.3, meesha uu ahay 2020gana 1.5. taas waxa keenayana waxa waaye amni darrada. marka aniga xilligaygii waxaan xoog saaray amniga, ama aniga iyo nidaamkii aan hogaaminayay waxaan xoog saarnay amniga. dhaqaalahana waxaan isku daynay inaan faragelinta badan ka dhaafno oo mataqaana uu noqdo suuq furan oo si furan mataqaana ganacsiga u socdo. canshuuruhuna maanta marka la fiiriyo iyo hadda waxay badan yihiin xilliga hadda la joogo. meeshii la rabay in la ballaariyo canshuuraha qofkii hore loo canshuurayo ee canshuurta lagu kordhiyay, intaas waxaa sii dheer in argagixisada laftigooda ay canshuur ka qaadayso, taasoo keentay dad badan oo ganacsanaya inay ganacsiga ka tagaan. waxaa kaloo qayb ka qaatay kala xiraashada magaalooyinka, ama gaar ahaan magaalada Muqdisho oo kala xiran waxay qayb ka qaadatay in dhaqaaluhu hoos u dhaco. intaas waxaa sii dheer in uu dhumay shilin Soomaaligii, in uu dhumay wax soo saarkii. marka Ilaahay hadduu nagu guuleeyo waxaan ku dadaalaynaa sharciyadii dhiiri geli lahay maalgashiga ama ganacsiga guud ahaan horta in la dhameystiro, in la xoojiyo wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe, in la xoojiyo, in la soo saaro shilin Soomaaligii, in canshuuraha faraha badan ee ganacsatada la saarayo loo wareejiyo meelo kale oo hadda aan canshuur laga qaadin si dakhliga kor loogu qaado. sidaas oo kale in la dhiiri geliyo mataqaana hay-adaha wax soo saarka sida beeraha, wasaaradda beeraha, wasaaradda xanaanada xoolaha, sida maxay ahaato shidaalka oo kale iyo kalluunka, in lagu dadaalo in ay wax soo saar fiican sameeyaan si dakhliga ay wax ugu soo kordhiyaan. marka intaas marka laga gudbo, marka la soo aado arrimaha deyn cafinta oo iyagana critical ah, waxay soo bilowdeen 2012 engagement ay soo mareen, kadibna staff monitoring ay soo mareen oo runtii waqti dheer oo aan loo baahnayn ay ku jireen. decision point la soo maray, haddana waxaa la joogaa completion point oo weliba khatar loogu jiro in arrintaas oo istaagto oo dib loogu laabto mataqaana hawsha la soo waday. marka haddii aan ku guuleysto xilka hoggaanka dalka, waxaan degdeg uga howlgeli doonaa si loo dhammaystiri lahay meesha hadda la taagan hore looga socon lahay oo loo dhammaystiri lahay, isla markaasna loo heli lahay isfaham wanaagsan oo na dhex mara dowladda Soomaaliya iyo IMF-ta iyo World Bankiga, sidaas oo kale African Development-ga. sababtoo ah haddaan hay-adahaas oo kale aadan la lahayn xiriir wanaagsan
waxaa adkaanaysa inaad kor u qaaddo dhaqaalaha dalka. sidaas darteed waxaan rabnaa sharciyadii daruuriga ahay ee lagama maarmaanka ahayna in la hagaajiyo. guddiyadii baarlamaanka ee korjoogteynta shaqadooda ahaydna iyagana in la dardargeliyo. ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa sidaas oo kale shaqo abuur mataqaanaa deegaanada kala duwan in la gaarsiiyo. maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe inay u fariistaan sida canshuuraha loo miday lahay. hadda meel walba canshuuraha lagu qaadaa, taasna waxay culays ku tahay dhaqaalaha dalka. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu guuleeyo inaan u khidmayno dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena. aad iyo aad waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.